يكسيغا himilada dalkeena yigsiga himilada dalkeena ayaan ka tubtiisa haysta kirkiyadooga iftimay hawada uduga nasaqay midhaha hoobanta hortay ilaa cirka ku horay ilaa cirka ku horay harada buuxdiyo jidhaanta harada buuxdiyo jidhaanta amiga nolol aayatile ibada eebe balaaran haddaan hantiyoon fayto horumarka dalka waxa kubciyo oo qayb lixaad la ka qaata isla markaasina dhaqaalaha dalka kor u qaada waa marka ay jiraan warshado wax soo saar oo sameeya alaabo cunto dhar iyo waxyaabo kale oo muwaadinku u baahan yahay warshadaha sidoo kale waxa laga dheefaa shaqo abuur oo waxa yareeyaa shaqo la'aanta warshaduhu waa laf dhabarta dhaqaale ee lagama maarmaanka u ah wax soo saarkoodu bulsho meel wada degan filimkeenan kooban waxaynu diiradda ku saari doonaa horumarka ay gaadheen warshadaha Soomaaliland iyo sidoo kale dadaalada wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha ee Soomaaliland waxaanu safar ku tagnay magaalooyinka Burco, Boorama, Berbera iyo magaalada Hargeysa annagoo soo indhaynay isla markaasina soo aragnay in ka badan 40 warshadood oo soo saara waxyaabo kala duwan Somaliland in ka badan 80 sanadood waxa laf dhabar dhaqaale u ahaa xoolaha nool kuwaas oo loo dhoofin jiray wadamada Carabta iyaga oo nool muddadaasi dheer kadib magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa laga hirgeliyay warshad farsamaysa hilibka xoolaha taasi oo dhoofinaysa hilibkii warshadani waxay daabaxad ku samaysaa ariga noocyadiisa kala duwan sida riyaha iyo idaha kaasi oo lagu qalo hanaan casri ah oo loogu talagalay warshadani ay ku qalabaysan tahay isla markaasina waafaqsan shariicada islaamka halkan aan ku suganahay daawadayaal waa warshada hilibka ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay ii sheegeen mas'uuliyiinta warshadani in maalintii ay qalaan ari ku dhow 500 oo neef waxa sidoo kale halkan ka hawlgala shaqaale tiro badan oo qaybaha kala duwan ee warshadaasi ka hawlgala qaarkood dhinaca caafimaadka ay u qaabilsan yihiin hadda halkan waxa yaala neefyo kala duwan oo ay warshadu farsamaysay waxay ku bushqadaysan yihiin warqad ay ku qoran tahay in Soomaaliland ay xoolahani ka soo baxeen waxaana sidoo kale loo dhoofinayaa wadamada kala duwan ee dunida xoolaha ay warshadani farsamayso laguma isticmaalo suuqyada kala duwan ee Soomaaliland maadaama gudaha Soomaaliland laga helayo hilibku isagoo fresh ah laakiin se dunida kale ay warshadani u dhoofinaysaa Somaliland hilib way helaan laakiin anaka waxaan ku talagalnay inaan international community-ga ka qayb galno so hilibka anaka qadno waa dhamaantooda waan dhoofinaa Emiraadka GGC-ga hadda Omanna waa noo gashay si wacan baan suuqa ugu jirnaa iyo meelo kale waa ka howl jirnaa hadda waxaan sugaynaa jawaab celintii haday tahay Malaysia u dhoofinayna iyo haday tahay Emiraadka waa ku jirnaa jawaab daawadayaal halkan aan imika ku jira waa mid kamid ah koontiinarada lagu qaboojiyo xoolaha ama ariga la soo qalo saad arkaysaan ariga ayaa iga dambeeya laakiin se waxay ii sheegeen in mararka qaar ama marka uu mashiinkan u shidan yahay uu gaaro qabowgu -40 taasi oo sababaysa in neefka xoolaha ay ku jira uu dhagax noqdo baahiyaha daruuriga ah ee muwaadinku u baahan yahay waxa kamid ah inuu helo gogol uu jiif raaxo leh ku seexdo iyo sidoo kale fadhi Somaliland agabka laga farsameeyo furshaanta markii hore waxa laga soo dejin jiray dalka dibadiisa gaar ahaan wadamada China, Turkiga iyo Imaaraadka Carabta balse sanadahani dambe waxa Somaliland ka hana qaaday warshado badan oo soo saara isla markaasina farsameeya agabkaasi waxaana kamid ah warshadahaasi warshada Royal Foam oo ku taala magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal agabyada aan soo saarno waxa kamid ah furshaanta waxa kamid ah barkimooyinka waxa kamid ah fadhiyada oo standard kala duwan leh iyo qaabab kala duwan spring kiba kamid ah spring mattresseska waxa kamid ah rebonded mattresska oo kuwi adka waxa kamid ah isbuunyada caadiga furshaanta isbuunyada caadiga
barkimooyinkana waxaan soo saarnaa fiber pillow oo saamaxaya in la isku maydho maradii iyo barkintii oo isku jirta. wax kale soo saarnaa barkimooyinkii kale caadiga ee awalba la isticmaali jiray. marka laga reebo in warshadani gudaha waddanka ay ku soo saartay agabyo ay bulshadu baahi weyn u qabeen, waxay sidoo kale shaqo abuur u samaysay in ka badan 100 muwaadin oo reer Somaliland ah. markanina Hargeysa alkhayraad waxay ka mid tahay warshadaha soo saara waxyaabaha buushka ka samaysan, waxaana xusid mudan inay tahay warshadii ugu horeysay ee samaysa agabyada buushka laga farsameeyo guud ahaan Somaliland, waxaana la aasaasay sanadkii 1999. warshada waxa la aasaasay 1999 oo muddo imika 22 sano ah. warshadaha imika Jamhuuriyadda Somaliland ka shaqeeya ee hadda shaqeeya oo warshada ugu da'da weyn. wax soo saarka warshadu wuxuu gaadhaa gobollada waddanka oo dhan 6 gobol ee waaweyn ee maxay ahayday Jamhuuriyadda Somaliland. waxa kale oo gaadhaa wadamada jaarka haday tahay Ethiopia, Djibouti iyo Soomaaliya. keligood maaha, laakiinse waxaa jira warshado kale oo soo saara agabyada buushka ka farsamaysan, kuwaasi oo ku yaala magaalada Hargeysa. waxaana ka mid ah warshada Karama oo la aasaasay sanadkii 2020. warshadani waxay soo saartaa furshaanta, fadhiyada iyo waxyaabaha kale ee buushka ka farsamaysan, waxaana ay wax ka bedeshay suuqyada waaweyn ee magaalada Hargeysa baahidii loo qabay in agabkani laga soo dejiyo dalka dibadiisa. sidoo kale iyadna Hargeysa waxaa ka jirta warshada kale ee lagu magacaabo Raaxo, dhammaantood waxay farsameeyaan agabyadaasi buushka ka samaysan. Buleyle warshadani waxay soo saartaa barkimooyinka lagu seexdo. warshadani waxaa wax soo saarkeeda loo iibgeeyaa dhammaan suuqyada dalka oo dhan. halkan aan daawadayaal ku suganahay waa warshada daqiiqda ee Alwadaniya. waxay ku taallaa magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. waxaa laga yaabaa in qof kasta uu cuno laxoox ama sabaayad ama kimis laga farsameeyay daqiiqda Alwadaniya. bal aynu soo daawano warshada iyo qaabka ay u samayso daqiiqdaas. ina keena daqiiqdu waxay ka mid tahay wax soo saarka guri kasta ama maqaaxi kasta oo ku taalla Somaliland laga heli karo cunto laga sameeyay waa kasta oo bariya iyo gobol kasta oo dhaca, laakiinse waxa laga keeni jiray dalka dibadiisa ka hor intaan magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil laga samaynin warshada daqiiqda Alwadaniya. warshadani waxa lacag malaayiin dollar ah geliyay muwaadiniin reer Somaliland oo kaashanaya muwaadiniin kale oo Carbeed. daqiiqda iyo buushaha soo saarno suuqyo kala duwan buu gaadhaa. suuqa koowaad waxa weeye waa localka oo Somaliland gudaheeda oo dhan 6 gobol uu gaadhaa. waxa ku xiga dalka ay walaalahan jaarka ee Soomaaliya oo tago ilaa Beledweyne uu gaadho gobolada dhexe. sidoo kale Ethiopia uu galaa dhanka uu ka galo Wajaale uu gaadho Jigjiga ilaa Addis. dhanka kale Mooyaale lafteedana waa gaadhaa ee xuduudka Kenya iyo Soomaaliya iyo Ethiopia. dhanka waa suuqa daqiiqda weeye. dhanka buushaha markaan eegno saddexdaas suuq ee Soomaalida marka laga tago wuxuu naga gaadhaa dhanka Carabta oo waxaan u sii iibgeynaa Masar, waxaan geynaa Oman, waxaan geynaa Yemen. sidoo kale dalkan jaarka Djibouti laftiisana waa qaataan buushaha. waa warshada Ilays Enterprise, waa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn Somaliland. sidoo kale waa warshada ugu weyn gobolka Togdheer, xarunteeduna waxay ku taallaa magaalada Burco. warshadani waxay soo saartaa agabyo kala duwan, waxaana ka mid ah waxyaabaha ay soo saartay dhan hadda gacanta ku hayo oo ka mid ah wax soo saarka ugu caansan isla markaasina ah kii lagu bilaabay. sidoo kale waxay soo saartaa agabyada kale ee bulshadu ay u adeegsato nadiifinta. waxay gaadhaan wax soo saarkeedu wadamada Somaliland, Ethiopia, Djibouti, Soomaaliya. sidoo kale mararka qaar waxay u talaabaan wadamada Kenya, Eritrea, Suudaan iyo South Suudaan. warshada Ilays oo ku taalla magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay sidoo kale shaqo abuur u samaysay boqolaal ka mid ah dhalinyarada reer Somaliland kuwaasi oo fursado shaqo ka helay.
والله shaqaalaha hadda warshada ka shaqeeya sida tooska uga shaqeeya wadad 200 ku dhow oo ayaa ka shaqeeya warshada 120 qof baan ku qiyaasi karaa oo dadkaas meesha ka shaqeeya wadad dhamaantood dad dalka u dhashay dadka warshada soo gala xagga xafiisyada ayaa hal nin jooga ajnabi oo iibkii waxa ka shaqeeya laakiin in allaala inta kale wadad dalka u dhashay oo muwaadiniin reer Soomaaliland ayaa ka shaqeeya taasina waxay muujinaysaa in kobac dhaqaale iyo magacba ay ka caawinayso dalka dadkiina ay soo gelinayso shaqo abuur iyo dakhli marka wax wanaagsan runtii qofku markuu wax bartay uu isagu dadaalo cidimo hortaagna qofku isaga meeshu doonaysa geen kara kaligeena ma rag badan oo dhalinyaro ayaa meeshaan kaga wada shaqeynaa fursaddan ugu furantay qofka hadduu dalkiisa aamin wax barto isagu dadaalo meel badan buu gaari karaa qofku waxa ka badan intaan gaadhin ka badan buu la gaari karaa anigu waxaan soo haystaan waxba gaadhnay darag iga yar baa meel ka fiican gaadhay oo jooga fursaduna waa qofka bini aadam kolba sidoo isagu yeelo shirkaduna runtii aad bay dhalinyarada u dhiirigelisay xooga in dadka dhalinyarada mar kasta oo ay fursad soo baxdo iyaga dadaalka la siiyo si dhiirigelin ugu noqoto jiilasha dambe oo dhan iyo dadka hadda jooga ay waxbarashada ugu dhiiradaan inay dalka aaminaan ugu dhiiradaan sidoo kale warshada Ilays waxay leedahay laab loogu talagalay in lagu baaro agabka ay kala soo degto dalka dibadiisa ee afka qalaad loogu yeedho raw materialska waxaana lagu baaraa tayada alaabtan ka soo degtay dalka dibadiisa laabka waxaan u isticmaalaa dhowr siyaabood siyaabooyinka muhiimka ah ee asaaska u ah wax soo saarka waxa kamid ah marka ugu horeysa alaabta chemicalska aanu doonayno inaanu ka sameeyno productiga ama ha noqoto tayda ama saabuunta ama productyada kale liquidka alaabtan raw materialka aanu soo iibsano waxaanu sameynaa tayadoodana baarnaa si standardkii aanu uga rabnay aanu u gaarnay inaanu uga helno raw materialka intaanay processka la gelino wax lagu soo saarin markanina laascaanood Tayasan Shampoo Factory waa mid ka mid ah warshadaha ugu waaweyn ee ka hawlgala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool taasi oo soo saarta shaambooga iyo agabka nadaafadda noocyadiisa kala duwan waxaana loo iibgeeyaa wax soo saarka warshadani guud ahaan suuqyada kala duwan ee Soomaaliland geesta kale waxa magaalada Hargeysa ka jira warshada lagu magacaabo Ahlaam Super Cleaning oo iyana soo saarta agabka nadaafadda soddonkii sano ee Soomaaliland ay jirtay waxa ay soo martay marxalado kala duwan kuwaas oo sababaya in la gaaro horumar dhaqaale taasina waxay suuro gelinaysaa in guud ahaan deegaanada kala duwan ee Soomaaliland laga bineeyo dhismayaal noocyo kala duwan leh laakiin guud ahaan agabka dhismayaashaasi galaya waxay ahaayeen kuwa laga soo dhoofiyo dalka dibadiisa laakiin sanadkii 2016 waxa la aasaasay warshada lagu magacaabo National Steel Industry oo ku taala magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil agabka dhismayaashu ay ka mid yihiin jiingadaha iyo masaabiirta ayay warshada National Steel oo ku taala magaalada Berbera ay ku sameysay gudaha wadanka wax soo saarkani waxa uu meesha ka saaray baahidii badnayd ee ka jirtay suuqyada kala duwan ee dhismaha ee Soomaaliland horta warshada waxa la aasaasay 2016 waxaana loo aasaasay in ay samayso wax soo saar gudeed oo wadanka gudihiisa shirkadu waxay soo saartaa waa jiingada oo noocyo kala duwan leh oo ku saabsan xagga qaradeeda iyo masaabiirta waxa kale oo soo saartaa one time use ka baalkan lagu isticmaalo hodheelada ee lagu rido maxaa la yiraahdaa cuntada lagu rido waxa kale oo ay u talowdaa suuqyada maartay Itoobiya oo ah suuqeena ugu weyn ee labaad ee marka wadankeena laga tago waxa kale oo shaqaabuurada shaqaale badan oo ilaa 100 ayaa markaa ka shaqeeya oo shaqaalaha ka hawlgala ah daawadayaal agabkan aan gacanta ku hayo waa mid si weyn looga isticmaalo guud ahaan suuqyada kala duwan ee Soomaaliland dadku waxay ku qaataan cuntada iyagoo siyaabo kala duwan loogu isticmaalo markii hore waxa laga soo dhoofin jiray dalka dibadiisa laakiin haatan waxa lagu sameeyay Soomaaliland gaar ahaan magaalada Berbera Somaliland Foil waxay ka mid tahay warshadaha wax soo saarkooda lagu reeyay waxaana ay soo saartaa maacuunta cuntada lagu qaato ama safaariga oo inta badan laga keeni jiray dalka dibadiisa
Shonland Industry iyana waxay ka mid tahay warshadaha soo saara jiingada waxaana ay ku taallaa magaalada Hargeysa ee Somaliland caasimadda waa iyagoo iskaashanaya warshadahani waxay buuxiyeen baahidii suuqa taalay ee loo qabay in agabkani laga keeno dalka dibaddiisa shirkadda dhismaha iyo guriyeynta ee Kaabsan waxay samaysaa shubka iyo jaajuurka taasi oo loogu talagalay dhismayaasha dhaadheer waxaana ay u adeegtaa dhammaan dhismayaasha laga hirgelinayo magaalada Hargeysa waxaana mustaqbalka dhow hiigsanaysaa inay gaadho dhammaan gobolada kala duwan ee Somaliland waxaan uga qayb qaadanay saddex shay koow horta marka meel la dhisayo berigi hore wadooyinka waa la xidhi jiray wadooyinka dhexdoodaaba sibir lagu qasi jiray hadda sibirkiyo diyaarsan baa la geeyaa horta xaggaa way fududaysay waxay kula fududaysay dadku hadda dhulkii bay ka faa'iideysanayaan berigi hore 2 dabaq ama 3 dabaq kaliya la shubi jiray hadda waxaa laga yaabaa guri 30 dabaq 20 dabaq in lagu shubi karo taasina waxay keenaysaa in city-ga ama waxa la yiraahdo magaaladu gudaheedu uu qurux badnaado oo waad aragtay hadda madxafka oo kale waad aragtay annaga shubnay waxa hadda dhul dhismaha ka socdo oo dhan magaalada inta 90% waa warshada kaliya hadda shubta waa Kaabsan Daryeel waxay ka mid tahay shirkadaha guunka ee ku yaala gudaha Somaliland qaybteeda warshadu waxay soo saartaa agabyada lagu qurxiyo guryaha iyo xafiisyada waxaana ka mid ah jikooyinka albaabada qalabka xafiisyada iyo agabyo kale oo dhamaantood ka qayb qaadanaya qurxinta guryaha Somaliland waxyaabaha uu dhulkeedu hodanka ku yahay waxaa ka mid ah dhagaxa laga sameeyo rinjiga haddaba warshada Fortune oo fadhigeedu uu yahay magaalada Hargeysa waxa ay ka mid tahay warshadaha ka faa'iideystay fursadaasi waxaana ay soo saartaa rinjiga iyo istambarka taasi oo dabooshay baahidii loo qabay in rinjigan laga keeno dalka dibaddiisa warshadan waxaa maalgeliyay muwaadiniin reer Somaliland oo hantidooda dhulka ku aaminay waxweeyaan ay soo saaro waxweeyaan rinjiga maxay tooy istambarka waxay tooy ronox wax la yiraahdo stuuko marka la sugeeyo waxa guri lagu qurxiyo oo dhan gudo iyo dibadba waa sameynaa waxweeyaan marka maxay tooy laba nooc oo qaybsamaya waxweeyaan rinjigu waa rinjiga waa ka waxa la yiraahdo oil base kala yiraahdo ama saliitiga ama zeyt asmaadu taado min waxweeyaan water base baa wax istambarka la yiraahdo weeyaan waxa soo raaca jiingadaha dusha laga mariyo kalarka doon ha noqdo green haday tahay red haday tahay yellow haday tahay nooc doon ha noqdo waxa soo saaray stuukada waxweeyaan wata guryaha inta la marinin maxay rijiga ama istambarka wata laga horeysiiyo marka la mariyo tilbista la mariyo ayaa nuurad la mariyaa markaas hadana stuukada wax la yiraahdo yaa la mariyaa marka suugeeyo waxaanu sameeynaa waxweeyaan wixii looga baahay guri in lagu qurxiyo ama hodeel ha noqoto wixii macnaha dhismaya la yiraahdo wixii lagu qurxinay sidoo kale magaalada Hargeysa waxaa ka jira shirkado kale oo sameeya agabka dhismayaasha oo ay ka mid tahay Siraaj oo iyana samaysa rinjiga lagu nashqadeeyo dhismayaasha warshada Sham Factory waa warshada kaliya ee ka jirta gudaha Somaliland ee soo saarta marmarka lagu qurxiyo wadooyinka iyo guryaha hortooda warshadani waxay xafiisyo ku leedahay guud ahaan gobolada kala duwan ee Somaliland iyadoo u adeegta dhammaan magaalooyinka ku yaala dalka marmarkeedu waxa uu qayb lixaad la ka qaatay qurxinta magaalooyinka waaweyn wadooyinka iyo guryaha hortooda shirkadda horta Sham waxa ay ka shaqeysaa meelo kala duwan shirkaddu markii hore waxaan ku bilownay hal site ayaan ku bilownay laakiin alxamdulillah ilaahay fadligiisa intii daba waxaanu gaadhnay in aanu shirkadda hadafkeedu noqdo ama istiraatiijiyadu noqdo in la ballaariyo marka Boorame ayaan ka shaqeynaa Hargeysa ayaan ka shaqeynaa Berbera ayaan ka shaqeynaa Burcaan ka shaqeynaa iyo gobolada Soomaaliyada kala intaas oo meelood baan ka shaqeynaa hadda waxa kale oo wax soo saarka gaarsiinaa labada gobol ee kale haray Laascaanood iyo Sool iyo Sanaagna alaabtaan u diraa waxaana laakiin ujeedadu tahay in iyaga laftoodana aanu ka sameeyno goob shaqo aanu ka sameeyno laana anagu waxaanu ka shaqeynaa waa culus yahay oo waa alaab culus marka qaadida ku adag sidii loo qaado oo lagu gaarsiin lahaa gobol kale way adag tahay taas marka waxaynu kaliftay inaanu meel walba aanu ka sameeyno warshad tan oo kale ah
marka la helo dhismo qurux badan si lamida waxaynu u baahannahay in la helo alaabo qurux badan oo lagu goglo guriga hoostiisa tanina waa warshadda City Furniture oo nashqadaysa alaabaha loogu talagalay guryaha hoostooda sida hurdooyinka fadhiyada cuntooyinka iyo dhammaan agabyada kale ee lagu qurxiyo xafiisyada tayahan waa kuwa ka wanaagsan kuwii laga keeni jiray dalka dibadiisa ruuxantii saad ka warqabtaan hore waxa u jiri jirtay waddankeena in la keeno alaab laga keenay dibadda oo quality-geeduna hooseeyo qiimaheeduna ay sarreeyo sidaa daraaddeed City Furniture waxay ka dambeysay alaabtii hore aanu isticmaali jirnay ee dibadda ka keeni jirnay alaab ka tayo badan ka qurux badan oo qofkiina uu juus garaysan karayo isagoo inta yimaado odhanaya dhisaynka ay sameeyo sida doonayo lagu samayn karayo ayay ruuxantii City Furniture uga beddeshay alaabtii hore waddanka dhex ooli jirtay Turkish Furniture iyana waxay ka mid tahay warshadaha soo saara agabyada lagu qurxiyo guryaha xafiisyada iyo almuuniyanta warshadani waxay kaga duwan tahay warshadihii kale aynu soo aragnay in qofka muwaadinka naqshada uu xilligaasi dalbado cayn kastoo ay tahay loogu sameeyo gudaha magaalada Hargeysa waxay meesha ka saartay baahidii loo qabay inaad hesho nashqad qurux badan isla markaasina aad dalbato oo inta markabka ama doonta lagu soo raro ay ku soo jiraan badda ay muddo ka qaadanaysay Getaway East Africa waxay ka mid tahay warshadaha ku yaala magaalada Hargeysa ee Somaliland caasimadda u ah ee farsameeya sariiraha iyo fadhiyada loogu talagalay guryaha guud ahaan dunida isticmaalka alaabta ka samaysan balastiga aad ayay caan uga tahay iyadoo laga duulayo in Somaliland ay isku filaansho ka gaadho soo saarista agabka ka samaysan caaga waxa laga hirgeliyay guud ahaan Somaliland warshado wax soo saar kuwaas iyo agabkaasi farsameeya iyadoo ay ka mid yihiin warshada Tayo oo soo saarta alaabooyin la xidhiidha balastig waxyaabaha ay warshadani soo saarto waxa ka mid ah kuraasta baaldiyada biyaha lagu shubto iyo agabyo kale oo dhammaantood ka samaysan balastig haddii aan soo koobo waxyaabahan soo saarno waxaan u qaybinayaa 3 group waxaan u bixinayaa household items ama kuwa guryaheenu ay isticmaalaan sida baaldiyada iyo kuwa wax lagu nadiifiyo iyo alaabooyinka idhaahdaa dharka lagu meedho ama weelka lagu meedho ama carruurta loogu meedho iyo qaybta labaad oo aan u bixinayo qaybta ay ganacsatadu isticmaasho oo ah caagadaha ama konteenarada yaryar ee lagu shubto waxyaabaha dareerayaasha ah sida xabaasuuda malabyada caanaha iyo xitaa shaambooyada oo warshadaha dalkeenna aan u keennay in aanay dabadda ka soo iibsanin waxyaabihii shaambooga lagu shubayey inay halkan ka helaan oo warshadaha dalka waxa kaloo raacda dhinaca warshadaha in warshadaha rinjiga sameeya aan u hayno baaldiyadii ay ku shubanayeen rinjiga halkan aan ku suganahay waa warshada Tayo Plastic waxay soo saartaa agabyo ka samaysan caag kuwaasi oo ka kooban ama ka badan 30 item oo caanka ah suuqyada kala duwan ee Somaliland alaabaha ay soo saarto waxa kamid ah caaggan haatan gacanta ku hayo aad looga isticmaalo guryaha dadkuna waxay u isticmaalaan inay biyaha ku qaataan in qooshka lagu garaaco iyo waxyaabo kala duwan alaabta markii hore waxay ka iman jirtay waddanka dibadiisa laakiin haatan warshada Tayo oo ay maalgeliyeen muwaadiniin reer Somaliland oo isu tagay ku soo saartay gudaha magaalada Hargeysa geesta kale iyana magaalada Hargeysa waxa ka jirta warshada Gamuur oo la aasaasay sanadkii 2003 taasi oo soo saarta taangiyada biyaha lagu shubto waxa taangiyadeeda isticmaala xaafadaha iyo sidoo kale hoteelada kala duwan ee guud ahaan Somaliland adeega ay warshadani fidisay waxa uu meesha ka saaray taangiyadii markii hore la isticmaali jiray oo laga keeni jiray dalka dibadiisa kaasi oo bir ka samaysnaa isla markaasina dadku ay dhibaatooyin kala kulmi jireen ay ka mid tahay inuu dhaxalaysto waxa kale oo iyana magaalada Hargeysa ka jirta warshada lagu magacaabo Hargeysa Plastic oo ah tii ugu horeysay ee balastiga samaysay ee laga hirgeliyay magaalada Hargeysa waxay warshadani soo saartaa agabyo kala duwan ay ka mid yihiin bacaha ay bulshadu ku adeegtaan tuumbooyinka biyaha iyo sidoo kale kuwa kale ee loogu talagalay inay dhulka hoostiisa maraan ee loo isticmaalo xadhkaha leedhka iyo kuwa internetka labadaba
Somaliland waxay mamnuucday oo ay meesha ka saartay bicihii ay dadku kaga soo adeegan jireen suuqyada kala duwan iyada oo loo nisbeeyay inay waxyeeli karto deegaanka iyadoo baahidaasi laga faa'iideysanayo warshadda Dahabi Factory waxay keentay hal abuur cusub kaasi oo lagu sameeyo kiishash ay dadku suuqyada kaga soo adeegtaan isla markaasina deegaanka aan waxba yeelin baahiyaha kale ee Somaliland aanay sinaba uga maarmi karin haddana dalka dibadiisa laga keeni jiray waxa ka mid ah buugaagta ubadku ay ku dhigtaan dugsiyada waxbarasho iyo jaamacadaha dalka taasina waxa dabooshay oo meesha ka saartay warshadda buugaagta iyo waraaqaha ee aadko warshadda sharaabka iyo caanaha ee SBI waxay ka mid tahay warshadaha ugu waaweyn ee ka hawlgala gudaha Somaliland waxaana ay qayb ka tahay sharaabka caalamiga ah ee dunida oo dhan laga isticmaalo ee Coca-Cola warshadani waxay wax badan ka tartay suuqyada sharaabka caanaha iyo biyaha sifaysan ee tayada sare leh waxa maamulo khubaro muwaadiniin iyo sidoo kale ajaanib isugu jira wax soo saarka warshadani waxa loo iibgeeyaa dhammaan suuqyada kala duwan ee Somaliland iyo sidoo kale wadamada aynu jaarka nahay sharaabka budada ah ama lagu qaso biyaha waxa uu ka mid yahay sharaabyada loogu isticmaalka badan yahay guud ahaan dalka waxaana lagu cabaa guryaha hoteelada goobaha la isugu yimaado haddaba warshadda Ilatango waxay soo saartaa sharaabyada budada ah oo tayo fiican leh waxaana loo iibgeeyaa suuqyada kala duwan ee Somaliland Ilatango dadka ayaa jecel oo si maalinle ah u isticmaala sidoo kale warshadda Samsam waxay iyaduna soo saartaa sharaabka budada ah jabista iyo biyaha macaan hal abuurka warshadani waxa sidoo kale qayb weyn ka qaadatay horumarka dhanka cabitaanada iyo sidoo kale cuntada fudud sida jabista oo ah cunto ay jecel yihiin dadku Ufresh waa warshad ay ku midaysan yihiin muwaadiniin reer Somaliland iyo kuwa kale oo u dhashay dalka Shiinaha kuwaas oo maalgeliyay gudaha Somaliland waxay ku taalaa magaalada Hargeysa warshadani waxay soo saartaa sharaabka noocyadiisa kala duwan oo ay ka mid yihiin mid loogu talagalay carruurta yaryar iyo mid kale oo loogu talagalay dadka waaweyn waxay kaga duwan tahay warshadihii hore ee aynu soo marnay shaqaalaha ka hawlgala warshadani waxay u badan yihiin haween warshadda cuntada ee Hargeysa Food waxay ku caanbaxday wax soo saarka jabista waxaana ay ka mid tahay warshadaha ugu waaweyn ee soo saara jabista iyo sidoo kale buskiyada noocyadiisa kala duwan warshadani waxay kaga duwan tahay warshadihii hore 90% tirada shaqaalaha ka hawlgala waa haween in la helo biyo sifaysan oo ay u dhameystiran yihiin dhammaan macdanihii loo baahnaa waxay bulsho meel wada degan ka caawisaa badqabka caafimaadkooda si taasi loo gaaro Somaliland waxa ka hirgalay warshado badan oo ka shaqeeya helidda biyo nadiif ah waxaana warshadahaasi ka mid ah warshadda Xayaat oo ah mid ka mid ah warshadihii aynu soo sheegnay waxay ku taalaa magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal sidee ayay Xayaat u dabooshay baahida biyo nadiif ah ay u qabaan bulshada gobolkaasi alxamdulillah imka waxaan soo gaarnay inaan noqono biyo ugu tayo fiican ee gobolka Awdal ama Boorama dhexdeeda ayaan noqonay annaka oo 6 bilood oo kaliya shaqaynayna 6 bilood system ma sameeyna ama system kan qaadana waxay ahayd inaan laba option isku qaybino qaybta hore ah inaan maxay ahayd aan Boorama oo kaliya ku ekaano 6 bilood 6 biloodna aan tayno oon eegno tayadayada soo saarkayaga maxaa jira maxaa inaga xun inaan saar 6 bilood kale inaan dib uga baxno wixii 6 bilood ka baxa oo naano way xeebtaan u dhaadhacno iyo caasimada ah Hargeysa oo meeshii lagu tartamayay xagga businesska marka laga hadlayo halkani waa warshadda biyaha ee Xayaat ee magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal warshadani waxay soo saartaa biyo noocyo kala duwan leh oo ay ka mid yihiin 20 litir 1 litir 1500 ml 750 ml iyo waliba 350 ml biyaha 350 ml waa tan aan gacanta ku hayo waxay sheegeen mas'uuliyiinta warshadu inay yihiin biyaha ugu socodka badan ee lagu cabo suuqyada magaalada Boorama warshadani biyaheeda ay soo saarto waxay gaarsiisaa magaalada Boorama qaybaheeda kala duwan haatan waxay hiigsanayaan inay gaaraan guud ahaan gobolada kala duwan ee Somaliland
warshadda Saxansaxo Group waa mid ka mid ah warshadaha biyaha ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Biyaheedu waxay gaaraan guud ahaan gobolada kala duwan ee Soomaaliland. Kaliya wax soo saarkeedu kuma eeka biyaha, balse waxay samaysaa sharaabka, sooraha noocyadiisa kala duwan, kaasi oo looga magac dhigay Soda King, haatana laga heli karo guud ahaan gobolada Soomaaliland. kaligood maaha warshadaha biyaha ee Soomaaliland ka jira ee gobol kasta oo Soomaaliland waxa ka jira warshado kala duwan kuwaasi oo loogu talagalay inay daboolaan baahida loo qabo sidii loo heli lahaa biyo nadiif ah. kuwa aan ka xusi karno waxa kamid ah warshada biyaha ee Maax oo ah mid kamid ah warshadihii ugu horeeyay ee biyaha ee ka hirgala Soomaaliland. sidoo kale iyadna waxa kamid ah warshada Sixo Boorame, iyana waxa kamid ah warshada Shifo Boorame iyo qaar kale oo badan oo ka jira guud ahaan gobolada kala duwan ee Soomaaliland. wasaaradda horumarinta maalgashiga warshaduhu waxay u qabataa waxyaabo fara badan bay u qabataa warshadaha dalka. haddii aan qaar ka mid ah ka tilmaamo, marka qofka doonaya inuu warshad dalka ka sameeyo inuu dalka yimaado, tallaabada koowaad ee wasaaraddu qabataa waxa weeyaan diiwaangelinta mashruuca warshadaha. mashruucii warshada ama mashruucii warshadaynta dalka in wasaaradda marka ugu horeysa la diiwaan geliyo. qodobka labaad ee wasaaraddu ay qabato waxa kamid ah marka laga yimaado diiwaangelinta mashruucii warshada, ilaalinta fikirka diiwaangelinta. qof baa imanaya, fikirkii buu la imanaya, qorshuu wataa, waxaa laga yaabaa inaanu markaa wixii fulinaynba. marka fikirka qofku uu loo diiwaan geliyay mashruuca warshada ah waa loo ilaalinayaa, oo haddii qof kale uu yimaado oo fikirkii fikir la mid la yimaado waxa weeyaan looma diiwaan gelinayo. marka qofka fikirka warshadaynta dalka la yimid muddo ama waqti ayaa fikirkii waxa weeyaan qofka loo ilaalinayaa oo wajahaadka wasaaradda. waxaa kamid ah ilaalinta tayada iyo lahaanshaha muunadda. ilaalinta tayada iyo lahaanshaha muunadda kamid ah. salahan oo kale waxa weeyaan wixii ay soo saarayso salahan oo kale warshado kale hadii laga production-keedii waxa weeyaan hadii timid la wallo ilaalinayaa. waxa weeyaan warshadii waa loo ilaalinayaa, tayadeedii waa la eegayaa, la ilaalinayaa, muunadii waxay soo saaraysaa la eegayaa, la ilaalinayaa. waxaa kamid ah markaa shaqooyinka waaweyn ee qabato wasaaradda sharciyeyntii warshadaha. marka in warshadii waxa weey la sharciyeeyo, certificate-ka ama liisanka warshadii la siiyo. inta marka laga gudbo waxa taa dhinac taala kala xadeynta warshadaha, in warshadihii la kala xadeeyo. salahan oo kale in warshado isku mid ah aan meel waxa weeyaan laga kala furin ama la isku soo horjeedin oo wax production isku mid ah soo saaraya. marka in la kala xadeeyo warshadaha laftoodii waxa weeyaan waa waxyaabaha wasaaraddu qabato ee xagga warshadaha u qabato. waxaa kamid ah salahan oo kale cashuur dhaafyada alaabta cayrin ama qayrin iyo qalabka warshadaha. inta badan wasaaradda maalgashiga warshaduhu iyadaa diyaarisa dhammaan wixii cashuur dhaaf ah warshadaha loo sameynayo, ama ha noqdaan alaabta cayrin ee warshaduhu dibadda ka keensanayaan, ama ha noqdaan salahan oo kale qalabka warshadaha dibadda laga keenayo. taas xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi hogaaminayo xeerkii maalgashigu markii la launch gareeyay ama uu dhaqan kale xeerka maalgashiga dalka xeer 99 waxa uu waajibiyay warshadaha dalka inay helaan cashuur dhaaf 100% 100% in cashuur dhaaf helaan warshadihii dalka. taasna waxay keentay inay warshadihii ay aad production-kooda u bato dhiirigelin fara badan inay warshadii helaan. marka waxa weeyaan dhiirigelinta ay dawladdu xukuumaddu sameysay baa keentay marka in markii cashuur dhaafka loo waajibiyayba intii ka dambeysayba waxaa dhacaysay in xitaa warshadayntii dalka in dalka dib loo warshadeeyo oo xitaa hantiilayaashii ama dadkii lacagta haysanay lacagtoodii ku aaminaan dalkii oo ay warshadayn ku sameeyaan dalkooda inay aad u korodhay ilaa imika ay sii kordhayso. warshadaha waxaynu ku soo aragnay runtii wax aad iyo aad loogu farxo oo shaqo aad u weyn oo ka socota warshadaha gudaheega oo tilmaamaysa dadkeena iyo sida ay diyaar ugu yihiin si wixii dalka gudihiisa yaala ay magaranaysa u farsameyn lahaayeen waxna u soo saari lahaayeen ayaa
ayaynu ku soo aragnay waxaynu ku soo aragnay warshado badan oo markii la aasaasay ay shaqaale ka ahaayeen ama ay ka shaqeynayeen boqolkiiba boqol dad ajnabi oo ma garanaysaa maadaama aqoontii iyo xirfadii dadkeenu aanay markaa levelkii warshadaasi ay ku shaqeynaysay aanay gaadhsanayn iyo heerkii loo baahnaa in markii ugu horeysay ay ku bilaabeen dadka shaqaalaha ee warshada ka shaqeynaya inay boqolkiiba boqol noqdaan dad ajaaniba laakiin hadda ay marayaan boqolkiiba 80 boqolkiiba 70 inay dhalinyartii wadanka u dhalatay ee reer Somaliland inay la wareegaan shaqadii oo ay iyagu warshadii hagayaan oo warshadii ka shaqaysiinayaan heerar kala duwan oo ma garanaysaa aqoontii iyo maamulkii iyo ka shaqaysiintii warshada abale waxa aad iyo aad dhiirigelin u leh weeye oo ay ma garanaysaa ka muuqatay ganacsatada reer Somaliland ee aasaasay warshadahaas inay xirfadiina reebaan oo dhalinyaradii aqoon iyo u kordhiyaan inay shaqo abuurkii xoojiyaan in wixii awal dibadda inaga soo galayna inay dalka ku farsameeyaan marka waxaan ku soo aragnay runtii arrin ididiila leh oo ah tamar dadku inay hayaan in ay wax soo saarkii wadanka kobciyaan ganacsataduna ay imika halkii awal ay alaab la soo dhoofin jiray oo laga soo dejin jiray dekedaheena inay imika ku fikirayaan qaarkood inay dhoofiyaan wixii wadanka lagu sameeyay lagu farsameeyay waxyaabo kale ku soo aragnay waxa kamid ah in agabka warshadaheenu ay soo saaraan in intooda badan boqolkiiba boqol agab wixii dibadda inooga iman jiray ay la mid yihiin ama ay ka qiimo sareeyaan warshado badan ayaa waxaan ku soo aragnay gudahooga in ay ka sameeyeen oo ka yagleeleen shay baadho ay leeyihiin si ay u tijaabiyaan heerka shaygan ay qaadayaan iyo tayada uu leeyahay shaygan ma garanaysaa suuqa la geenaya in uu ma garanaysaa dadka macaamiisha iyo mujtamaca laga iibinaya in ay hubiyaan wixii wax tayo leh oo dhibaato keenayn dadka oo badbaado qaba inuu yahay inay sii daayaan marka guud ahaan sawirka runtii nooga soo baxay booqashadii aan ku tagnay warshado wuxuu noqonayaa mid